walaalayga sharafta la horta waxaan rabaa inaan idin aad u mahadsantiin wallahi waxa ay dareensiiseen kaliya inaa ahayn taasna markuu xanuunku haayo waa dareemaha ugu fiican oo ku dareensiinayo allah dhibkan dad badan u haystaa wuxuu kaluuna i dareensiiyey xanuunkaanito inuu dadkaygo badan Soomaaliyeed hayo marka maanta dhowr waxaan rabaa inaan idin wadaago oo anigii caawiyo horta ani waxa ii keenay ma aha wax ama vitamin igu yar ama calcium igu yar ama saan igu yar ama saan waxa ii keenay waxa waa brace-ka aan isticmaalaha deertaan lugtayda brace cusub ay leedahay oo murqaha dhanka shaqaysiinaysa neerfaha marka balance-iga sida aan awalkii hore brace korsan ku ahaan jiray sida hadda ku ah way isbedelay balance change-ga dhacay saas daraadeeda ii keento so wax kale ma aha lugta aan aad u isticmaali jirin inaan isticmaalay oo hadda neerfaheedii dhaqtarkayga oo physical therapy wuxuu dhahay this is good news hay sababtoo ah macnaheedu waxa waaye hadda neerfihii way shaqaynayaan waa la isticmaalayaa iyo murqihii marka dhibkaas waxa ay keenay wasaas laakiin xanuunkaasito it breaks my heart dad badan inay ku nool yihiin ay u adkaystaan horta xanuun markuu imaado wallahi noloshaada macaankeedu wuu yaraanaya markuu xanuun jiro anaa arka ani maalin inuu yahay oo xanuunkaasito yahay wax xun ma ahani horta farxad iyo ma rabin inaan arko ani ma qosli kari dad qoslaa inaan arka ma rabin maalintaasito haddaan qoslo iska daa hindhisada xataa aan dhahaba aan qufaca halkaas dhashtee dhahdo korkayga dhan koronto inay hal mar bish lagu siiyo umalaysaa meel walba idanqanaysa xataa gaariga waa wadi waay wallahi waxaan ka soo maray markaan soo xasuusto waan yaabaa xanuunsaasaa inuu jiro gabar saaxiibteeda waxay ugu dhahday anigoo uur loobu i gale fooshi markii ay haysa xataa waa garan waaya dhahday inuu foosha ahaa iyo inuu xanuunkaas ahaa this why uu xanuunkan u badan yahay I know ani ilmo ma dhalin dad badan ay ugu dhahan adiga ilmo ma dhalin ma aqaan kartid intuu dhibku leeyahay markii la babar dhigo foosha but gabdho ilmo dhaleena saas igu dhaheen it breaks my heart dad badan inay ku nool yihiin xanuunkaasito oo inaan ku dhaho muu baahnina la noolaatid please waa idin baryaaya aan aragno physical therapy aan aragno chiropractic aan suubino acupuncture waxaan rabaa aniga waxyaalaha aan suubinayo inaan idin wadaago oo caafiyo haddeertaan almost 10% la xanuunka ugu har markaan saan dhaho laakiin inta shaqo aan qabtaa idin sheegaa waan shaqo galay physical therapy waan suubiye acupuncture waa suubiye okay chiropractic daa u baahdana waa suubinaya but already improvement weyna arkaa waxaan suubiyey baryahan dhan cunto caadiya ma cuni maraqaana cunaa maraqaan sweet potato ku jirto sweet potato wuxuu ku jirtaa cuntooyinka u roon neerfaha ay ku jirto kamid tahay waxaan suubiyaa stretches maalin walba stretches aan suubiyaa dhowr jeer maalintii stretches markaan suubinaa like kala bixinta lugta iyo miskaha kala bixintooda inaan suubiso exercise gaara jiro uu soo siiyey dhaqtarkayga oo physical therapist waa dhaqtarkayga wuu soo siiyey gurigan ku suubiyey maxaa la dhahaa kale xanuun way ahayd wallahi xal way dekaamaysa mar sinta laakiin waa loo baahan yahay xanuunka si inta u adkaysatid because waa kala bixinaysaa pinch nerviga you want to heal your nervigaaga bas markaasayto waxaan qaadanayayna fitamiinadeeda sideedii u qaadanayay hurdadeedaan badiyey maxaa kale biyo cabitaanka aadaan u badiyey cucumber cunida aadaan u badiyey shaaha sanjabiisha shaaha huruuda aadaan u cabaayay wax kale ma cabiin shaaha ah ayaga aan ka ahayn mushroomka cabitaankiisa shaaha mushroomka cabitaankiisa aadaan u badsaday isagana waa anti-inflammatory waxaa rabtaa inaad badsatid cuntooyinka anti-inflammatory ah cuntooyinka jirka qoynaayo waxaa rabtaa inaad badsatid cuntooyinka neerfaha hilgareeyo fitamiinada xataa fish oilka normally waxaan qaataa hal xabaan qaataa shala waxaan qaatay 2 xabaan qaatay bariyaha dhan intuu ihaye 2 xabaan qaadanaya maanta xataa 2 xabaan qaadanaya markay noqoto magnesiumka waxaan qaadanayaa dosage-kiisa awalka hore waxaan qaadan jiray 500 hadda kunaan ka dhigay waxaan aad u cunaa liin balbeelmada avokaadada liinta oo vitamin C iska taas caadi waa laakiin liin balbeelmada iyo avokaadada aad ay muhiim ugu yihiin really waxyaalaha stretchka qabowga inaan saaro kuleelka inaan saaro waxyaalahaas oo kala duwan badanaan subina waa isku mashquulaan ku dhahay sababtoo waan diiday xanuunkan noocan inaan la noolaado far baan qaadi waaye waa noolaan waaye waa qosli waaye waa hindhisi waaye maxaa la meel walba jirka uu isku xiran yahay gaarigiyaan wadi waaye
noloshaas camal kuma noolaanay marka hadduu xanuunadan ku xariiro neerfaha murqaha ku hayo fadlan raadso physical therapist dhakhtar ah acupuncture raadso chiropractic dhakhtar ah raadso waxyaalahaas dhan wax la kala bixiyo iyo wax la saxo iyo adjustment la jirku u baahan yahay saasuubiya keligaana jimicsi gaar ah iska suubinayn sababto wax anay isii dhibay weekendiga jimicsi gaar ah aan suubinayaa jireen waba iga sii dareenba kuwa lagu soo suubiyo la suubi bis sababtoo ah waxaa jiro kuwo kasii daraya nerve pinchigaasayto wax sii gaarsiinaya iyo kuwo wax u taraayo marka adiga midka kugu saabsan qof kuu suubinayo la xiriir oo ka warqabo sida adi lagu hayo waa mahadsantiin aad iyo aad qadadayda waatanaa macaanka badan waa maraq oo vegetable kulli yahay spinach xataa ugu jirtaa spinach way ku jirtaa cuntooyinka u roon neerfaha qaraayri jariya nabada